ku gaaraan isbisi magaalada Bortole anaga maslax Ibrahim Maadi cilmi baa leeyahay gobolka Laasacano saaka tan igu qabsatay hadeerna nolol naf ku jirto gaari saaran ma ahay waxa iigu wanaagsanaa inaan saaka maslax baa Laasacano ku geeriyooray leeyahay wiirad ayaa ii dhaantay nolosha Laasacano saaka la igu qabtay weligay Soomaalina kama dhicin saaka caruurtaas arkaysa anagu iska jijiifna iska hurudna ayaa noo yimid war qofku bini'aadinka ee xoolaha hataa waa la qiimo loo yeela nonoma oran wariyaha wadanka laga saaray biri ama saadanba maryahaaga meero ilmahaaga sahay u sii sameeysa talayma oran aroortii anagoo jiifnani gabadheeda la soo aqabtay gaari un bay soo saareen hay soo saareen ma xuma haday islaamnimo ay jirto islaamnimo ay ku dhaqmayaan war kuwan inay wax u eegan bay ahayn kuwaasaan waday kuwaas saaki ilaahay baan kugu dhaariyay tan isaaka afka halkan ba hadeer buskut lagu sii magaaladan Bortole markaan soo gaaray ayaa wallahi buskutki ugu horeeyay hadeer halkan lagu sii irsaaqadoodii maanta 12 saasay ka dhigeen waxa iga sii daran kubi xalay 5 saaxiibnimo ay guriga laga baxay ay meel ay la tageen kuwaas iga sii daran marka walaalayaal deena ma qabato islaam baan hay shariicada islaamka sidaana kulay ma dhigto maxaa kalifay idinkoo muwaadiniin Soomaaliyeed in dul Soomaaliyeed magaalada Laasacano dhibaatada inta leeg waxa weeye dadka Soomaaliyeed uu gaarsiiyo kulay dhibaato maanta aan sameeysanay ama anaga nagu helay oo maanta naga jaasinayna ma jirto waxa ruumay hadda ka maqan inta isticmaal caruur ba iga maqan waayo walaalkay caruurtu uu dhalay gabadhiisii gaarigan igu horeeyay saaran tahay labadeedii caruur caaw meelan ku sheegi kar ma garanayo inay dhulbaanta qaxaysteen inay dadka kale ay u galeen garan maayo waayo waa caruurteed un bay ka matahay walaalkay oo iga yar baa dhalay laba caruur oo ka maqan tahay mid hadeer lagu sheegay halka ku dhashay laamiga kuwa la mariyay taydan hadeer halkan sakaraadku aad arkaysid hadeer adigu dhaftarka ii geeshay aad ii soo baartay hooyaday hadeer meel kuma sheegi karo guri baa lagu qufulay gabar kale oo walaashayda guri bay ku qufulan tahay ay gala soo hadashay wallahi oo billaahi oo tallaahi nolosha oo maanta Laasacano nagu qabtay cudur ilaahay agtiisa noogi mid nagu dhac corona virus kila sheegay baa noo dhaantay inuu nagu dhaco meesh ku dhamaan sida ay maanta ay dhulbaantaas noo galay si ay islaamnimada ay shabaaysa ma wallahi hata diinta hata hadii lagu eego qofkiinu hata meel ay u dhowdahay ay soo martaa ku fiican waxaan ka codsanaynaa ilaahay idinkiisa tawfiiq horta marka hore Allah ina waafaji meesha khayr ku jir ilaahay ina waafaji de ma sha Allah hadeer markay gabadhayda ay taahaysay maanta dhulkan soo maray wari istaag aan ilmaha yaraan koob shaha u iibsade war ilaahay ma idin ku dhaarimeed wax dhan waan bartime maanta dhan waan bariyay wala istaag way baawarta Bortole hadeer markaan soo gaarayna gaari dhan raashin oo raran baa la iga daba keenay markii gabadhayda taahaysa la arkay inta la orday ba dhaqtarka la igay de ilaahay ba ma hada iskale ahsaanka ay sameystaan ilaahay ba waa abaalguday de marka waxaan